waxay afduubteen diyaarad ay saarnaayeen 127 qof waxayna garaaceen duuliyayaashii iyagoo ku qasbay inay Australia geeyaan iyagoo ku kacay fal argagixisay ismiidaamina kolkay diyaaradda si ula kacay shil u geliyeen haddaba maxay u afduubteen diyaaradda shilkase maxay u geliyeen duulimaadka yeysa ahaayeen talo afduubtayaashaasi su'aalahaas iyo kuwa kale ayaynu jawaab u doonaynaa ku soo dhawaada xalqadeenan oo ku saabsan afduubka diyaaradda Itoobiya iyo raggii afduubka geliyay duulimaadkii 961 waa borqo bisha November 23 waana sanadkii 1996 iyo garoonka caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa ee Bole International Airport oo ay subaxa safar u diyaar garoobay diyaaradda dalka Itoobiya iska leeyahay oo nooceegu ahaa Boeing 765 oo galay safar ay ku aaday dalka Kenya gaar ahaan caasimada Nairobi ugana gudbaysay dhanka iyo galbeedka Afrika waxaana subaxa diyaaradda duulinayay Captain Luel Abate oo ahaa khabiir diyaaradeed oo diyaaradaha dalka Itoobiya ku dhawaad 11,000 oo saac isagoo ku qaatay hawada lahaana khibrad fara badan oo duulimaad isagoo la kulmay caqabado kala duwan intuu ku guda jiray duulimaadyadiisa iyo colaado afduubasho oo dhowr ahba waxaana duuliya Abate kalkaaliye uu ahaa ama co-pilot subaxa in lagu magacaabi jiray Yonis oo ahaa isna 30 jir lahaa isna khibrad duulimaad oo aan yarayn waxaana subaxa diyaaradda saarnaa 163 rakaab iyo 12 qof oo ahaa shaqaalaha diyaaradda kolka lagu daro kabtanka iyo kalkaaliyihiisa diyaar garow yar raritaan dheer kadib waxay ku wargeliyeen hagayaasha diyaaradda inay u diyaar garoobaan safar duulimaad kolkii ay saacadu ahaydna 12 subaxnimo diyaaraddii waxa u dhaqaajiyay kabtankii dhankii wadadii ay ka duuli lahayd subaxa ilburqsiye kadibna hagayaashii hawadu waxa ay ku amreen kabtankii inuu duuli karo iyadoo ay kacday diyaaraddii kolka 12:09 mirir bilowgii safarkuna jawigu waa u deganaa cirkuna caad sidaas ma rakaabkuna waxa ay ku xasileen safarkaas oo ay ku tagayaan Nairobi kolkii ay muddo duulayeen ee ay wax waliba ahaayeen caadi cabaar 11 barkii kolkii ay saacadu ahayd ayay wax waliba isbedeleen oo sida la sheegay diyaaradda xilliga waxa ka dhax kacay 3 nin oo soo abaaray dhankii qolka duulimaadka diyaaradda iyagoo markiiba afduubtay diyaaraddii kolkii ay hore ka sii qaateen faashkii saarnaa diyaaradda iyagoo ku qabtay una hanjabay duuliyayaashii waxayna markiiba bilaabeen cagajugleyn iyo dagaal iyagoo garaacay kalkaaliyihii Yonis una hanjabay Captain Abate waxayna u sheegeen kolka duuliya Abate inay yihiin 11 afduubte sidoo kale inay wataan qarax iyo bambooyin si uu aqbalo warkooga iyagoo ka dalbaday duuliyihii inay meesha ay doonayaan u duuliyaan diyaaradda iyagoo ku qasbaya una sheegay inuu duuliyo diyaaraddaas dhinacaan ahayn magaaladii Nairobi ee cagsiga waxa ay u sheegeen inuu geeyo dalka Australia iyo inuu bedelo jihada uu duulayo ee Nairobi muran iyo khilaaf dheer kadib waxa uu sheegay duuliya Abate raggii afduubtay diyaaradda inaanay diyaaraddu u duuli karin Australia waayo sida uu sheegay diyaaradda kuma bay jirin shidaal ku filan oo ay ku gaari karaan uguna duuli karaan Australia maadaama ay durugsanayd diyaaradduna aanay wadan kayd ay ku duuli karto masaafadaas halkaas oo raggii afduubtayaasha ahaa ay dafireen kabtankii diideenna inay ka aqbalaan arrinta maadaama ay ka soo akhriyeen waraaqo iyo buugaag duulimaad in diyaaradda uu ku jiro shidaal fara badan iyagoo aaminsanaa inuu duuliyuhu been sheegayo bay ku qasbeen mar kale inuu u duulo dhanka Australia badlana jihada uu duulayo ee Nairobi haddii aanu aqbalin dilabkooguna waxa ay ugu hanjabeen inay garaacayaan siday u garaaceen una dileen kalkaaliyihiisii isagoo ka cagajiidaya una digaya buu kabtankii warkoogii qaatay si aanay khatar u gelinin naftiisa iyo weliba rakaabka uu wado duubtayaashana aan hadalkiisa iyo taladiisa toona maqlahayn iyagoo ku qasbay inuu ku wargeliyay rakaabka inay diyaaraddu afduuban tahay kolkiiba baktiyina nidaamkii iyo raadiyihii diyaaradda si aanay ula xiriiri karin meesha ay ka soo duushay iyo weliba meesha ay u duulayso hagayaasha fadhiya isagoo Captain Abate u sheegay raggii afduubtayaasha ahaa kuna cataabaya inaan diyaaradda ku jirin shidaal ku filan warkoogii aqbalay walow aanu toos u abaarin dhankii Australia maadaama badweyntu u dhaxayso isagoo ogaa inay sahligid iyo indhabeelnimo ay tahay u duulidaasi ayuu isku dayay
inuu ku qanciyo inay ku degaan Mombasa si ay shidaal uga sii qaataan. nasiib xumase kama yeelin talada ah manuu haysan ikhtiyaar kale oo aan ka ahayn inuu aqbalo warkooga xitaa hadday geeri tahay amaba ismiidaamin, maadaama ay tira ahaan u sheegeen inay badan yihiin iyo inay wataan bambooyin iyo qaraxyo. iyadoo ay intaa ku darsatay Kabtan Abaate in nin ka mid ah raggii afduubtayaasha ahaa ee madaxda u ahaa inuu fadhiisto kursigii duuliyaha oo farafaraynaya taataabanayana bidhimadii laga duulinayay diyaaradda isaga oo cabsan watana dhala khamri ah, taasoo keentay nidaamka diyaaraddu ay khalkhasho. walow uu kabtankii markii dambe la wareegay nidaamka saxayna intii karaankiisa ahayd, isaga oo in muddo ah waday safarkii walow aanu toos u abaarin dhankii Australia. iyadoo marka dambaysa ay hoos u sii dhacaysay shidaalkii ku jiray diyaaraddu ayayna safarkii in muddo ah ku jireen. wuxuuna markasta isku dayay kabtankii inuu ku qanciyo raggan inay ka aqbalaan warkiisa. nasiib xumase kamay aqbalin, taasoo keentay markii dambe in diyaaradda shidaalka ay goosato iyada oo ay baktiyeen mishiinadeedii mid ka mid ah kolay u dhoweeyay jasiiradaha Comoros. ilbiriqsyadii u dambeeyay bayna warkii ka aqbaleen kolkay xaaladda cakarantay arkeenna inay geeri u dhowdahay. nasiib xumase waxay ahayd kolay xeeriyo fandhaal kala dhaceen oo ma jirin garoon u dhow ay ku degi karaan oo aan ka ahayn ka jasiiradda Comoros ee koonfur bari Afrika. ilbiriqsiba kan ka dambeeyana waxaa hoos u sii dhacayay jawigii ay ku duulashay diyaaraddu maadaama uu baktiyey mishiinkii midig ee diyaaraddu. buu isku dayay Kabtan Abaate bal inuu xal u helo arrintan iyo in aanay tani ka maarmahayn in diyaaraddaasi ay hesho ilbiriqsiyada soo socda meel ay ku degto bad ama berri midkay noqotoba, halkaas oo ay si joogto ah shaqaalihii diyaaraddu sida la sheegay ay u hagayeen waxna ugu sheegayeen rakaabkii saarnaa diyaaradda oo xilligaa ku jiray cabsi iyo baqa saa'ida maadaama ay diyaaradda saaran yihiin afduubtayaal ku hanjabaya inay wataan qaraxyo garaacayna kalkaaliyihii. sugsug daawade dadka heshay muuqaalka fadlan like saar, subscribe na dheh kanalka si aynu u gaarno 50 kun oo subscribe. kuna soo dhawaada qaybta xigta ee sheekada. waxayna shaqaalaha diyaaraddu u sheegayeen kuna hagayeen rakaabka qaabka haddii shil dhaco ay naftooda u samata bixin karaan una yareyn karaan khasaaraha ka soo gaadhi kara shilkaas iyaga oo uu caawinayo kalkaaliyihii duuliyaha ahaa ee Yunis. waxayna u sheegayeen shaqaaluhu rakaabka qaabka ay u isticmaali karaan jaakeedyada iyo xilliga ay naqasayn karaan si ay uga badbaadi karaan shilka. ilaah baa wax badbaadiye. dhanka kale isna duuliya Abaate ayaa la wareegay taleefankii diyaaradda isagoo u sheegay kolka war argagax leh rakaabkii uu waday ee saarnaa diyaaradda isaga oo ku yidhi weedhahan mudanayaaliye marwooyin waxa idinla hadlaya duuliyihii diyaaraddiina waday oo idin leh shidaal kuma jiro diyaaradda oo dhammaa. ishiinkii midig ee diyaaradduna waa uu baktiyey oo hadeer ma baxayo. hadeerna waxaad filataan degitaanka diyaaradda oo uu shil ka dhalan karo. waxaana idinka codsanaya inaad farcalin ka bixisaan waxay afduubtayaashu wadaan. kolkii warkaa u sheegay rakaabka duuliyihii Abaate waxay afduubtayaashu ka xoogeen taleefankii iyaga oo u hanjabay inuu u sheego rakaabka warkaas iyo inuu ka bilaabo diyaaradda gudaheega kicitaan, balse dhegba uma dhigin kabtankii hanjabaadooda. wuxuuna u sheegay inuu dhimanayo laba gooraba hadday dilaan iyo haddii diyaaraddu shil gashaba, isaga oo u xaqiijiyey inuu hubo in diyaaraddaasi shil galayso kolka ay isidhaahdaan dega. waxaana ilbiriqsiba ka dambeeya hoos u dhacayay yarkay ku duulashay diyaaraddu iyaga oo ay shaqaaluhu isku dayayeen intii karaankooga ah inay wax u sheegaan dejiyaana rakaabka. waxay socotaba diyaaradii waxa ay gaadhay xeebta jasiiradaha Comoros. waxa uuna isyiri kabtankii ku deji, balse baalasha diyaaradda mid ka mid ah baa qabsaday xeebtii, taasoo keentay in diyaaradda ay shil ku gasho bartaas. qarax la mooday qaraxyo keenay in diyaaradda ay u kala qaybsanto dhowr qaybood, waxayna halkaa ku galeen shil aan khasaarihiisu yarayn. intaanay shilka gelin diyaaraddii ilbiriqsiyo ka hor waxaa arkay diyaaradda marka ay usoo socotay dhankii jasiiradda dalxiisayaal joogay xeebta jasiiradaha Comoros oo ku qaadanayay jawi halkaas. kolkaasoo mid ka mid ah dalxiisayaashaas oo duubayay muuqaal uu ku jeediyay dhankii diyaaradda kaamaradii iyada oo sida la sheegay ay aragtay diyaaraddaas oo soo abaaraysa dhankeyga siday u socotayna ku dhacday biyihii xeebta kolkuu baalku qabsaday xeebta. iyada oo kolka ay diyaaradda u kala jabtay 3 qaybood way ku baraarugeen dhammaan dadkii joogay xeebta jasiiraddaasi. kolkay biyaha ku daateenna rakaabkii saarnaa diyaaraddu nasiib xumo qaar waxay ku dhinteen shilkii markiiba, in
kalena waxay ku qarqoomeen biyihii. Qolo kalena waxaa ka soo gaaray shilka dhaawac, inna waxay la tacaalaysay siday uga badbaadi lahayd biyahan qabow. Waxayna isku dayeen intii karaankooga ah inay ka dabaashaan meesha kana baxaan kuraastan iyo weliba burburka diyaaradda ee dushooda saaran, taasoo keentay markiiba dadkii jasiiraddu ay u gurmadaan dadkii shilka galay, iyagoo u dhaqaaqay kolkaas samata bixinta inta dhaawacan iyo weliba inta nool, iyagoo ku daadgureeyay dooma ay wateen kolkaa. Sida la sheegana intii karaankooga ahayd bay daadgureeyeen dadkii shilka galay iyagoo geeyay cisbitaalka jasiiradda walow aanu wanaagsanayn. madax tirin iyo samata bixin dheer kadib waxaa la ogaaday shilka inay ka badbaadeen 50 qof oo keliya 170 qof ee saarnaa diyaaraddu. dadkaa badbaadayna waxaa ka mid ahaa duuliyihii iyo weliba kalkaaliyihii Yunis iyo Cabaate oo ka badbaaday nasiib wanaagooga shilka ah, waxaana ku nafwaayay dhanka kale shilka ah 125 qof oo ay ku jiraan 3 afduubte ee ka dambeeyay shilkaas, iyadoo oo kolkii baaritaan dheer lagu sameeyay la ogaaday inay diyaaradda u afduubteen si ay ugu tahriibaan isugana dhiibaan Australia, iyagoo oo ka rajaynaya inay heli doonaan samata bixin. waxayna waxaas oo dhan u sameeyeen si ay isaga dhiibaan dalka Australia, iyaga oo aan ka fiirsan bayna ku kaceen falka doqonnimada iyo maangaabnimada ah ee ay ku dhaga adeegeen talooyinkii uu siinayay kabtanku. bay falka ku kaceen ismiidaaminta iyo argagixisada ah ee galaaftay nafta dadkaas kala duwan ee ku geeriyooday shilka. sida la sheegay shilkaasi waxa uu noqday mid taariikhda galay oo keenay isbedelo dhanka duulimaadyada diyaaradaha ah. dhanka kale kabtankii Abaate iyo weliba kalkaaliyihiisii Yunis waxa ay noqdeen halyeeyo la ammaano maadaama ay ka soo baxeen shaqadoodii iskuna dayeen inay badbaadiyeen rakaabkooga intii karaankooga ah. Allah wax badbaadiyay, waxaana lagu maamusay maqaamo kala duwan iyaga iyo weliba shaqaalihii kale ee ku nafwaayay shilka. waxaase la sheegay in kabtankii iyo weliba kalkaaliyihiina dib ugu laabteen shaqadoodii duuliyeenna diyaarado kala duwan, walow aan filayo in Abaate uu howlgalay hadeer maadaama uu gaboobay. sidaan ogaadayna diyaaradda waxaa saarnaa dhowr qof oo Soomaali ahaa oo nasiib xumo qaar ka mid ay ku geeriyoodeen shilka, Allaha u naxariistee, halka kuwa kalena ay ka badbaadeen la mahadi. waxaana rajaynayaa in qisadaas ay noo noqoto cashar in dhaga adayga iyo ismiidaamintu aanay wanaagsanayn. haddii aad ka heshay daawada xalqadanna fadlan like saar, subscribe-na dheh kanalka, kana mid noqo xirta xogdoon oo la soco xalqada cusub isbuuc kasta maalinka Jimcaad. waxayna ku soo afmeeri doonaa xalqadeenan weerar laga hayo duuliyihii diyaaradda ee Kabtan Weel Abaate maruu ka waramayay shilka iyo weliba khasaarihii ka dhashay isagoo oo lahaa weerahan. waxay afduubtayaashu ii sheegeen haddii dalabkooga aanan ajiibin inay diyaaradda qarxinayaan, waxaana arkayay kolkaa in diyaaraddu aan shidaal badani ku jirin iyo in mishiinadu ay baktiyayaan haddii shidaalku go'o. waxaana u sheegay in dejintu lagama maarmaan tahay haddii aanan sidaas samaynin dhammaantayo aan ku nafwaayeyno. waxayna ii sheegeen kolkaa inay sidaaba rabaan. kolkaas baan rakaabkii u sheegay in diyaaradda aan dejinayo oo ay shil ka fishaan degitaanka. waxaanan isku dayay markaa in meel dad ka dhow yahay aan ku dejiyo diyaaradda si loo badbaadin karo rakaabka. waanan ka xumahay arrintaa, dad badan baana ku nafwaayay shilka oo ilaa maanta waan ka xumahay. murugo iyo qooma maanan dareemaa, laakiin wax kale oo aan u qaban karay may jirin xilligaa. waanad ku mahadsantihiin inaad halyey tidhaahdaan, laakiin anigu iskuma arko halyey inaan ahay, waayo keliya waxaan gudanayay shaqadayda taasoo ahayd tii lay xushay. Unless their demands are met, they will blow the airplane up. We're running out of fuel. Shortly, we're going to lose the engines. You have to let me land at this air. Otherwise, we're all dead people now. He said, that's what I want. And I told the passengers, we're planning for a crash landing. So my last option was just to go over the beach where rescue was available. I felt really sorry. Nobody should have died. We lost so many passengers. And really, I still mourn them, still. But there was nothing I could have done. Thank you for calling me a hero, but I don't consider myself a hero. I just fulfilled my professional obligation.